iyadoo weli sii socdo boobkii baahsanaa ee lagu hayay Soomaalida ku ganacsata dalkani Koonfur Afrika ayaa maanta shir jaraa'id waxa uu qabtay safiirka Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika warbaahinta kala duwan ee ku sugan dalkani Koonfur Afrika ee Soomaalida. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in ay la socdaan waxa ka dhacay dalkani Koonfur Afrika isagoo sheegay Soomaalida haddii ay midowdo ee maamul u gaara oo community ay sameystaan laga gudbi karo wax walba. Safiirka ayaa sheegay in uu u gudbiyay dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed dawladda South Africa isagoo sidoo kale tibaaxay in ay tahay cawaaqib xumo Soomaalida inayna lahayn wax account bangi ah oo ay lacagta ku shubtaan lacagahana ay dhigtaan guryahooda ama goobahooda ganacsi. iyo geerida iyo dhaawaca loo geystay dadkeen Soomaaliyeed arintaasi oo aan aad u hordhignay hay'adaha nabadgelyada ee qaabilsan ee South Africa waxaana cadaatay in dhibaatada ay soo gaartay qowmiyado kale oo ay ka mid yihiin Itoobiyaanka, Soomaalida, Bangladeshka iyo Pakistan dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed oo ganacsatada ah lagu sameeyay in ummadda Soomaaliyeed la boobo. waxaa la noo sheegay in nin Soomaali ah oo dukaanley ah oo bistoolad ku toogtay oo dilay laba qof oo Zimbabwean ah kadibna Zimbabwealki iyo wax allaale wixii gangster ahaa inay bilaabeen inay Soomaalida dhacaan dhicii lagu sameeyay halkaasi tuulo waxay markii isgaarsiiyeen 9 gobol ee South Africa. halkaasna waxay ka bilaabeen inay ummadii Soomaaliyeed ay hantidooda ay dhacaan mise dilaan mise dhaawacaan. qodobka ugu dambeeyo oo aan annaga la yaabanahay waxa weeyaan qofkii Soomaaliga ayaa noo kala cadeyn annaga inuu Soomaali yahay oo wax dilay iyo inuu waraaqooyin Soomaali uu iska wato oo sidaas loo leeyahay Soomaali waay. arrinkaasi waa dabagalnay qofkii wuxuu noqday nin Soomaali ah waxaana la soo taagayaa maxkamadda wixii ka soo baxana waa la arkayaa. laakiin intaan maxkamadda iyo la gaarin natiijadeedii ayaa waxaa bilowday laablakac weyn oo boob loogu qaaday Soomaalida hantidooda lagu dhacayo taasoo keentay in cabsidii zaid ay noqoto. dawladda South Africa ayaa arrintan soo gaarsiinay arrimaha gudaheeda iyo arrimaha dibaddeedii. waxaan shir la galnay qowmiyadaha kale oo annaga oo kala ah oo ayaguna halkan ka ganacsada sida Itoobiyaanka, Bangladeshka, sida mataqaanaa Pakistanka. waxaana safaaradaha Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Pakistan iyo Bangladesh isugu yimaadeen in ay la soo baxaan a unique mechanism oo ummadan lagu badbaadinayo. lianna haddana si wadajir aan arrinta wax looga qabanin qowmiyad ahaan keli waxba loogama qaban karo. si cabasho rasmi ah oo ummadan lagu badbaadinayana aan annaga mowqif aan ka istaagnay gaar ahaan arrinta Soomaaliyeed waxaynu gaarsiinay meesha ugu sareysa una sheegnay in ummadan la badbaadiyo. ummadii oo aan hantidooda dhigan karinna bangigana loo fududeeyo habkii ay hantidooda ku dhigan lahaayeen, habkii socdaalkooda lagu fududeyn lahaa. waxaan ku tala jirnaa in safaaradda sarkaal ka mid ah inuu Soomaaliya aado si baasaboorkii Soomaaliyeed oo hadda la aqoonsaday ay ummadda ay ugu safraan ayagoo dokumentigaasi watana ay awood u lahaadaan inay ka furtaan account bank. waxaan aad uga xumahay dhibaatada ku dhacday Soomaalida. waxa kaliya looga bixi karaana waa Soomaalinimo. qabiila looga bixi karin, gobol baan looga bixi karin, waxaan looga bixi karin qolo iyo gurub baan looga bixi karin ayadoo calankaas Soomaaliyeed la wada huwada mooye in aan calan kale iyo aqli kale iyo arrintan looga bixi karin. annagana waa ku dadaalaynaa ummadda Soomaaliyeed oo degan Koonfur Afrikana waxaan ka rajaynayaa inay isu yimaadaan dhibkaana hal meel ay uga soo jeestaan. dalkani Koonfur Afrika ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan boob baahsan ugu geysanayay iyadoo safiirka Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika Sayid Shariif oo maanta shir jaraa'id ku qabtay dalfaaradda ee magaalada Pretoria oo ku sheegay inay wax badan ka qaban doonaan boobkooda hadalna ay u socdaan dawladda South Africa mas'uuliyiin sare oo ka tirsan. Abdulxakiim Ibrahim Cawaale TV-ga Home Cable
caasimadda dalkani koonfur afrika magaalada Pretoria.